إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. dugsiga hoose dhexe ee Camuud oo ku yaala magaalada Burco ayaa munaasabad ballaaran oo sagootina u qabtay ardayda dugsigaasi oo kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe ee Somaliland iyadoo ardayda dugsigaasi ay dhammaantood ku wada baxeen darajada A sidoo kalena lagu furayay sanad dugsiyeedka cusub ee 2022 ilaa 2023 munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidwaha waxbarashada gobolka Togdheer maamulka sare ee dugsiga Camuud waalidiin mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Camuud Mustafa Kayse Cabdillaahi iyo macallimiin iyagoo faahfaahin ka bixiyay 22 arday oo kaalmaha ugu sareeya ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe ee Somaliland xafladani in lagu sabootiyo ardayda sanadka iskuulka ka qalin jabisa iyo in lagu abaalmariyo ardayda fasaladoodii sanad dugsiyeedka kaalmaha hore ka gashay waxaa iskuulkani furnaa haddaan taariikhdiisa yar ka ifiyo muddo kooban oo 3 sano 3 sano 3 xidh baa ka baxay dafcaddii ugu dambeysay ka baxaysa ardaydaasi sanadkan waa ardayda gobolka ugu sareysay marka waxaanu sanadkan helnay oo nasiib u yeelanay in ardayda gobolka ugu sareysay oo dhammaantood darajo wanaagsan oo ay ku wada baasay oo saaka halkan iyaga waalidkood bay nala joogaan waxaanu jecelnahay ilaahayna ka rajaynaynaa kuwa dambana inay sidaas oo kale noqon doonaan laakiin waxay ku imanaysaa tacab iyo dadaal hadday tahay kii macallinka hadday tahay kii waalidka hadday tahay kii ardayga marna annagu haddaanu nahay maamulka iyo macallimiinta iskuulka wax shakiyo aan ardayda aanu ka qabnay ma jirin annagu allahumma waan sii xoojinay dabagalkoodii iyo waxbarashadoodii iyo nidaamkoodii hadday tahay gelin hore iyo hadday tahay gelin dambe waxyaabaha iskuulka Camuud iskuulada kale uu ku dhaamo waxaa weeye ardayda fiiro gaar ah ayaa loo yeeshaa halkan waxa yaala dhiishii carruurta caanaha loogu shubi jiray subaxii loogu kaydin jiray intay barfiso xarfiso iyagoo qabo oo talaagada ay barqada ka cabi jireen kani waxa weeye halka imanka sufurada iyo barwiyada inooga buuxaan waa koobkii aynu wax ku cabi jirnay ee wixii loo baahdaba lagu cabi jiray aloolka aqalka aloolkan laga waayo baalkani waa dugsiga dhaxan celiyaha waxba ma jiraan halkan waxa yaalo mar dhow ay tumi doonaan wax loo yaqaano mooyihii iyo tibtii oo ay hablihii ugu heesi doonaan ardaydii fasalka ka baxay sanadka 8aad oo runtii ku dhawaad 20 arday ah inay 20 kuba ay ku baxeen darajada ugu sareysa ee anagoon alif garan ahayn af Soomaaliga naqan asaan qori garan ahayn dugsigana la keenaye cilmigan diyamaan dibale herkaan ku taaganahay bulshadan u dhawaaqaynay oo Camuud weeye ogo تزيد به العقول هدى ورشدا وتستعجل النفوس به شعورا إلام العلم لابس حسن خلقي معلمين أقونتي أخلاقي علمي إجست أرضيدي ونقول كوبتي إسلام دينتي إسلام عشرية علومات كدينتي عكو دقنتي هورائي عن كستوى أقونتي أي عبسين يا نوع على النظيفين dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan isduwaha waxbarashada gobolka Togdheer waalidiin iyo marti sharaf kale iyagoo ugu hambalyeeyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe Camuud sida ay ugu dadaaleen ardayda dugsigaasi ee kaalmaha hore galay waxa farxad leh oo aad iyo aad wax loo soo dhaweeyo ah oo wax lagu farxa ah 22 arday oo maanta ku baasay grade A والله وح لغو فرحو إلهي بانو مهدنقينا وسولو ويننا سكول كان يوحو لغان دونا سكول لغو عانسان ما انت برعو اما قبل كان تقدر كالمها كوات كقالي ما انت عنيقا يقلسي قيمة بلن بسكول كان هو سدحي عمود ما انت لبقيا لباتن أرضي قرير ايه كوباسين وأبارغنا وأمهدنقينا وسولو ويننا maamulka iyo macallimiintaba halka waxa kale oo farxad leh hidihi iyo dhaqankii baa laga sheekeeyo
aniga lafteedu wax badan baan ku muraaqooday markii macallinkii imka halkan hiddaha iyo dhaqanka uu sharxayayo dugsigan eeda galay ee camuud maanta mar hadduu gradekiisa 22 arday ee galaan dugsiyada private-ka uu naga dhow yahay waana la shaqaynaynaa insha Allah tacaala waana caawinaynaa runtii farxad bay tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan lagu sagootiyo ardaydii ka baxday sanad dugsiyeedkii hore ardayda waa hambalyeynayna marka ugu horeysa waa u ducaynaynaa dadaal bay muujiyeen dadaalka inaad sii wadaan runtii iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuullada haldoorka ee hurmuudka u ah gobolka Togdheer waa maalin aynu maxay farxadda la qaybsanayno dugsiga Camuud iyo ardaydii sanad dugsiyeedkii sanadkii 22 iyo 22 waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa inuu yahay dugsigan Camuud iskuul qiimo badan oo dhammaanba buuxiyay shuruudihii waxbarasho ee ardayga looga baahnaa ee macallinka looga baahnaa ee nabadgelyada looga baahnaa ee nadaafadda looga baahnaa ee deegaanka looga baahnaa dugsigaasi inuu buuxiyay ayaan caddaynaya waxa jira xanuun iminka magaalada si gaar ah u haya oo la yiraahdo xumadaasi dadkana way leynaysaa waa lagu dhimanayaa dad badan baa si kadis u dhintay waa sidii koroonihii oo kale waxa lana soo faray oo dhammaanteen aynu isfaraynaa in xanuunka xumada cidda lagu arka calaamadihiisa oo aynu ognahay magaalada inay hadda aad iyo aad ugu jadan tahay waxaanu idinka codsanaynaa calaamadaha lagu arko qofka xumada ama qoyska lagu arko ama qofka lagu arko in si degdeg ah iyadaan dawo la siinin loo geeyo goobaha dawladda dawada antibiyootig la siiyana xanuunka lama siin karo waa sida nala soo faray gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin ugu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo dhammaantood ku wada baxay darajada E sidoo kalena waxay ardaydu abaalmarino guddoonsiiyeen maamulka dugsiga iyo macallimiintiisa Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco